maanta waxaan baranaynaa waxa la yidhaahdo spyware amase waxaad dhici karta in computerkaaga mar walba aad shidid ay ka soo boodaan waxyaalo aadan xiiseynayn amase aad u foolxun si aan uga hortagno dhibaatadaasayto oo waxyaalahan markasta iska soo boodaya adigoon aan raalli ka ahayn amase ciyaalkaaga arkaya amase de markaasayto computerkaaga ka dhigaya mid aad u xawaaray dhayareeya waxaa marka aan ka soo qaadaynaa marka ugu horeyso waxaa jira barnaamijyo la yidhaahdo spyware defense spyware sidiisa waxa uu suubiyaa waxa ay tahay waxa uu aruurinayaa wax walba oo ku taybgaraysid meesha tusaale ahaan emailkaaga haddaad taybgaraysid fartii aad qortay basswordkaagii amase maaragtay bangiga haddaad tagtay warqadahaagi waxaad internetka aad ka isticmaalaysid wax walba la guranaya hadhowdii waa laga xadi karaya wax walba haddii ay markaas qoladii kuu soo dirtay si marka taa looga hortago waxaad u baahan tahay wax la yidhahdo spyware defender inta badan waa lacag laakiinse hadda waxaan ku tusayaa kuwa lacag la-aan ah oo markii aad ku download garaysid kaa yaraanayaan waxyaalahaasayto waxaa jira 3 nooc baa jira spywareka la yidhaahdo waxayna kala yihiin window defender adware iyo spyspot 3daas nooc baa jira marka midda ugu horeysa aan soo qaadno waxaad type garaynaysaa windows defender waxaa kuu soo baxaya microsoft webpagekeeda waa taabanaysaa kadibna waxaad markiiba aad arkaysaa window defender wax la yidhaahdo waa download garaynaysaa wax kalaad samaynaysa ma jirto waa un taabo meel walba markaad taabatid window defender baad markaa riixaysaa inaad download garaysid microsoft waxay jeegaraynaysaa marka ugu horeyso in operating systemka ama microsoft system kugu jiro inuu yahay mid saxa oo kii aad computer kusoo gadatay ama mid saxa aad usoo iibsatay uusan ahayn mid tuuganimo aad meelaha ka soo qaadatay ood xadaysid haddii ay taas dhacdo markii ay wax walba okay waayo lagu yidhaahdo dhinaca labaad ba ku ogolaanaysaa halka waxaa ku qoran genuine microsoft software marka waa ujeedaa midkani waa midka lagu soo iibshay computerka ma aha mid lasoo xaday oo waa mid saxa sidaa daraaddeed haddaba download baa ku samaynaysaa waxaa kuu soo baxaysa run markaad ran baa taabanaysaa isla markiiba isaga ayaa isku shubaya computerkaaga mar alla markuu isku shubo mar labaad ayuu kuu soo baxaya internet explorer security warning waa digniin uu ku oranayo meeshaas ma ogoshahay inaad ku shubtay computerkaaga haabaad oranaysaa markaad ku shubtay computerkaaga isla markiiba waxaa u gudbaysaa haddii aanu aragno calaamadan baa kuu soo baxaysa oo wizard ah amase isaga ayaa isku shubaya computerka update window defender haddii hore kugu jiro update baa leedahay haddii kalena mar walba next baad oranaysaa install baad orani kadibna isaga ayaa isku shubaya computerkaaga marka window defender sidaa ayaad ugu shubaysaa computerka oo markii uu ku shubmo oo diyaar uu noqdo window defender waxa markiiba aad isticmaali karaysaa barnaamijkii aad doonaysay in aad markaas oo ahaa window defender isaga ayaa isku shubaya waxaad taabanaysaa finish kadibna waa isbedelaysaa oo waxaa kuu soo baxaya markaas window defenderkii oo noqonaya markaa mid isaga diyaar kuu ah inaad isticmaashid sidaa buu kugu soo baxay marka halka waxaa kugu soo baxaya no unwanted harm or software detective computer is running well haddii marka uu kugu horeysa ay tahay waxaad samayn kartaa halkaba taabanaysa oo ku qoran scan macnaheedu uu yahay iga fiiri bal computerka haddii dhibaato ku jirto ilaa 4 daqiiqo waxaa laga yaabaa inay qaadato muddo yar wax yar bay qaadanaysaa si markaasito aad u rangaraysid computerka haddii ay wax ka soo baxaan oo wax soo qabto tuuganimo ku jiro computerkaaga halkaas bay ka soo baxayaan isaga ayaa markaas kaa saaraya oo kadib waxaa oranaysaa remove sidaa ayaa uga faa'iidaysanaysaa window defender waa kuwa ugu waaweyn ee markaa jiro window defenderska la yidhaahdo